مراجعة ما أنت إن شاء الله حكوا سبسنت هاي قيت الله يقعنا مايكروسوفت أوفيس إكسل إن شاء الله حين شرحنا لواتم سؤالات مركزي general revision كا أوكي قدر أوه روا to change مركز بدشوا the text font قرار بان قرينا كتبنا وحانس كدينا مركزي قرار كاس إن مركزي فرتي سي إنه بتسمى وقدر أوه روا إكسل كنوسو كعيا اوكي قيبتا مدحا سره oo kale halka waxaad inoo qorayso alahan modern halka sare modern inoo qora waxaan doonaynaa marka qoraalkan inaynu bedelno waxa weeye waxa loo yaqaan fontigiisa inaan bedelno okay so just laba qaab aad u sameyn kartaa misan qaab u sahlan marka qoraalka hadii sida aad dhahdo hadda adigoo qoraal marka qorto hadii qaybta fontigeeda aad tagto waxa laga yaabaa farta inaysan inta badan inaysan isbedelin laakiin maxaa sameynaysaa marka qoraalka qorto meel banaan kale ku dheh meelaha meel kamid ah kale ku dheh ka bacdi qoraalkii ku laabo kale ku dheh qoraalkii marka ka bacdina qaybta fontisiyada tag marka faraha meesha ku jiraan oo fontisiyada meesha ku jiraan tag farta jecesha marka qoraalkaaga ka dhigo font textigaagii farta aad u rabto markaasi ka dhigo ana midaas ka dhiginaya waa ka okay sidaas markaasi hadii ku suurtagal weyso in marta ay bedelanto aad markaasi aad ku sameynaysaa okay qodobka soo xigay kale wuxuu yahay isagana aynu gudubno qodob kale qodob labaad waxa uu isagana to change in abadasho text size ka misana cabirka markaasi farta markaasi in abadasho okay waxaan doonaynaa isla qoraalka size kiisa in abadino kale ku dhaw qoraalka ka baadna qaybta size ka weynayso okay qaybta size ka waxa weeye markaasi weynayso waka kale aad ku dhahdo automatically haduu ku sameeys waa eeg ah hadii sida haduu ku sameeys waxa sameynaysaa meel banaantag dib ugu laabo ka baadna size ka tag halka laga weynayo oo laga badiyo iyo halka markaas laga yeereeyo hadaa doonayso inaad decrease aad ku sameyso halkaas ku dhufanaysaa haddii aad doonayso inaad waxa weey increase aad ku sameysan halkaas ku dhufanaysaa sidaas u weynayn kartaa size ka misana isha yariistan geeska furaysaa ka baadna numberka aad jeceshahay aad ka dooranaysaa halkaas okay waxa soo xiga in markaa aynu bedelno waxa weeye I think qodobka saddexaad aynu isleeyno to change the text color kana inaynu bedelno okay sidoo kale ku dhig qoraalka kadibna waxa sameynaysaa qaybta font color ka tag colorka jecesha u sameyso hadii ku sameyso waana meel banaanimo tib u laabo qoraalka ku dhig ka baadna font color sida colorka jeceshahayna waxa weeye okay ka dooro colorka rabto okay sidaas marka waxa weeye okay fontiga okay aad u bedeli kartaa size-kana aad u bedeli kartaa waxa weeye colorkana waxa weeye aad ugu bedeli kartaa markaasi qoraalka okay aynu saacano waxaynu gudbaynaa qodobka ku xiga baynu gudbaynaa waa qodobka afraad waa tumeyna markaas aad ka dhigto the text qoraalka hadaad u baahan tahay waxa weeye bold okay inaad ka dhigto italic inaad ka dhigto or misana waxa weeye underlined mid hoos ka xariiqan qoraalka inaad ka dhigto eeg marka qoraalkan kiilan ku leenahay hadii bold aan rabno marka kiilan ku dhaano qaybta bid xagga dhinaca geeska halka wajidaaso okay halkaas tagaysaa oo ku dhufanaysaa bol sidaas uu noqonay awal sidaas uu ahaa fiir awal sidaas uu ahaa hadii bol aan ku dhufto bid sidaas uu isku bedelayaa ayada maxaa weeye waa itali gif underline kan maxaa weeye soo in hoos aad ka xariiqdo hadaa u baahan tahay bol waa isticmaal kartaa si gaar ah italian si gaar ah underline si gaar ah hadda laakiin aniga waan ka wada qaadanay maantoodii original kiis buu yahay sidaas buu yahay hadaa u baahan tahay bol minaha maybe waa halkaas baad ka tagi kartaa italian halkaas underline waxa markaas sameynaysaa halkaas aad ka tagaysaa iyadoo ku qoran tahay okay si markaas short form ah keyboardka ay waxaad dhigi kartaa control okay B or B for book kabadna control I oo italic ah control U means underline it ay dhigi kartaa adigoo isticmaalaya keyboardka okay waynu ku gudbaynaa insha Allah qodobkaas waxaynu gudbaynaa qodob kale aynu gudbaynaa qodobkan waxa weeye addition xisaab aynu isku dareynaa insha Allah xisaab aynu markaa aynu isku dareynaa waxaynu qoraysay okay 85 okay lagu daray 85 kale lagu daray 34 lagu daray 34 lagu daray 20 okay waxaan rabnaa lacagahan inaan tijino totalka aynu soo saarno waxaan doonaynaa inaynu markaas aynu isku darno dhammaan lacagaha meeshii noo yaalo dhan aan isku darno intaas horta marka hore noo qora okay intaas marka hore horta inoo qora waxaan doonaynaa marka lacagtaas inaynu isku dardarno aynu doonaynaa insha Allah wata
okay so marka lacagta aynu isku dardarayno okay sidee ayaa markaas addition u sameyn karnaa anagoo isticmaalayno waxa weeye excelka anagoo excelka isticmaalayno si wax isugu dari karnaa okay waxaynu sameynaynaa waxa weeye xisaabtan ayaynu isku daraynaa xisaabta ayaynu markaa aynu isku daraynaa waxaynu sameynaynaa markuu horeyso equal baan ka bilaabaynaa equal markuu horeyso waxaan leenahay equal markuu horeyso equal kabacdi waxa ku dhufanaysaa tirada sare kili ku dheh 85 kili ku dheh lagu daray dhe marka lagu daray haddana 45 ka hoose kili ku dheh tirada ku xigto kili ku dheh lagu daray dhe haddana 35 kili ku dheh lagu daray dhe sidoo kale haddana 34 kili ku dheh lagu daray dhe ugu dambeyn 20 kili ku dheh sidaas rabno marka inaan iskugu dardarno okay kabacdi enter baa taabanaysaa totalka waxaa laga rabaa in markaasi lacagta totalka waxaa la rabaa inuu noqdo markaasi haddii lacagaan dhammaan la isku dardaro 218 waa lacagta guud markaasi dhammaan marka lacagaha la isku dardaro marka lacagaas ku daraysa qaab noocaas u xisaabinaysa marka aynu xisaabino okay waxa weeye waxaan leenahay $10 waxaan leenahay $10 baan doonaynaa markaasi inaynu $10 ayaynu markaasi aynu doonaynaa inaynu ku darno $10 keena aynu ku darno okay markaan ku darayno sayid wax kale ma halka hoose imaanaysa ay wala leedahay waxa leedahay 10 ka sare kale ku dhehaysa lagu daray dhehaysa 10 ka hoose taabanaysa خلاص enter baa leedahay 10 lagu daray 10 waa imisa 20 in 20 ka sida soo saarta laga rabaa shalay waxaynu gudbaynaa marka qodob kale aynu gudbaynaa qodobka kale aynu markaas aynu gudbaynaa okay so qodobka lixaad oo qodobkan wuxuu leeyahay waa subtraction waxa ku qoran waa subtraction means inaynu waxa weeye xisaab aynu markaas aynu kala jarno anoo isticmaalayno waxa weeye excelka salaam waxaynu qoranaynaa okay 60 laga jaray 30 waxaan rabnaa marka $60 inaan ka jarno waxa weeye $30 inaan ka jarno markuu horeyso waxa leedahay equal marka dhahdo waxaad ku dhufanaysaa su'aalahan kaliya aad ku dhehaysaa 60 ka kale ku dheh tirada ugu sareyso kale ku dheh kabacdina laga jaray calaamad laga jaray isticmaal calaamad laga jaray baad isticmaalaysaa calaamad laga jaray isticmaal kadibna waxa ku dhufanaysaa 30 ka hoose ku dhufanaysaa kabacdi waxa leedahay enter خلاص sidaas marka xisaab waxa weeye hadii aad kala jaraysid aad ugu shaqeyn kartaa mar kale dhinaca geeska inuu ugu shaqeyno waxaan leenahay 80 okay $80 laga jaray waxaan leenahay waxa weeye $20 80 waxaan ka jaraynaa 20 okay markuu horeyso equal baynu leenahay 80 leenahay laga jaray baynu leenahay kabacdina waxaan ku dhufanaynaa tirada hoose kale ku leedahay kabacdi enter taabo hadii 80 laga jaro 20 waxa soo baxa waa $60 okay waynu ka gudbaynaa insha Allah sidaas aad u xisaabin kartaa wax markaas u kala jar xisaab markaas u kala jari kartaa insha Allah adiguna okay waxaanu gudbaynaa marka qodob kale aynu gudbaynaa waa multiplication okay aynu markaas tira aynu markaa aynu isku dhufano okay aynu islaarno qaybta tira baynu isku dhufanaynaa marka salahan 5 waxaynu ku dhufanaynaa 5 ay waxaan ku dhufanaynaa dhahnay 5 marka horeyso equal baynu leenahay equal marka dhahnana waxaan leenahay 5 kore 5 sare kili ku dheh lagu dhuftay isticmaal marka lagu dhuftay dheh tirada hoose 5 kili ku dheh marka le kabacdina enter taabo خلاص 5 lagu dhuftay 5 waa imisa 25 okay mar kale aynu isku dayno waxaan leenahay $10 lagu dhuftay waxa weeye $4 okay so waxaynu leenahay marka equal baynu leenahay 10 ka dollar ayaan kilo ku leenahay kadibna waxaan leenahay lagu dhuftay baynu isticmaalaynaa kadibna 4 toos ayaan kali ku leenahay kabacdina enter
marka toban lagu dhuftay afar ay mise $40 ay noo soo bixayso. Okay, sidaas marka adiguna xisaabta markaas ugu dhufi kartaa. Okay, waynu ka gudbaynaa, waxaan gudbaynaa qodobka kale waa division, waa qaybi. Okay, qodobkan isagana waxa weeye waa qaybi. Xisaab aynu markaasi aynu isku qaybinaynaa, waa xisaab aynu isku qaybinaynaa. Okay, sidee waxaan leenahay $20 loo qaybiyey laba qof. $20 ay waxaan u qaybinaynaa laba qof. marka ugu horeyso waxaan leenahay equal markaa dhahdo 20 aad keli ku leedahay, kadibna loo qaybiyey baad leedahay, kadib tirada hoose labada aad keli ku leedahay, kabacdina inter baad taabanaysaa. marka 20 loo qaybiyey waa 10. mar kale waxaan leenahay $50 loo qaybiyey 5 qof. baynu soo saaraynaa equal baynu leenahay marka ugu horeyso $50 kale ku leenahay, loo qaybiyey baynu leenahay 5 hoose, kabacdina inter baynu taabanaynaa. sidaas ayaa xisaab kasta markaasi aad ugu qaybin kartaa. Okay, waynu ka gudbaynaa, waxaynu gudbaynaa marka qaybta kale aynu gudbaynaa waa okay, waa total. inaynu markaasi aynu soo saarno total, inaynu soo saarno total, inaan soo saarno ayaa markaasi aan rabnaa. Okay, total markaynu soo saarayno soo waxaynu leenahay marka ugu horeyso total minaha waa inaad okay saalaan halka ay u qoraysiin NO jadwalan sameynayna imtixaanka oo kale. inta waxay u qoraysiin names, intana waxay u qoraysiin English, ma u qorayso English ah, halkaana Arabic. Okay, halkaasna waxa weeye total. Okay, intana okay total. soo marka namesyada waxaan rabnaa qaybta namesyada markaan joogno, qaybta namesyada markaynu joogno halkaas marka sida ay tahay magaca saddexaan qof magaciisa saddexaad marka qoraysa halka waa aad ba u yar tahay. marka waxaad tagaysaa meelahan kale ku dheh, meelahan sare kale ku dheh, kabacdi halkaas tag. waxaan rabnaa halka inaan weyneyno, soo ma fahmin. kabacdina meelahan bartamahan tag, nooca marka isku bedesho seed iyo deed meesha iskaga imaaneen bartamaha tag. noocaas marka isbalaarta isku bedesho left qabo, saan xoogaa u yar jiidanka khalaas. sidaas aan u sameyn marka qofka magaciisa saddexaad aan qori karnaa. salaana Ahmed Zain aan leenahay arday ugu horeeyo, kan kalena waxaan leenahay Fatima Ahmed Hassan, kan kalena waxaan leenahay Aisha Adan Ibrahim, kan kalena ugu dambeyn waxaan leenahay Zain Hassan Abdi. Okay, intaas noo qora jadwalka noocaas. markaan sameyno kadib arday kasta maad English ku xigo marka uu helay baan siinaynaa. ardayga oo kale English 80 uu keenay, kan 90 ayuu keenay, kan 75 buu keenay, kan 45 buu keenay. Okay, Carabidan oo kale wixii keenana baynu siinaynaa. arday kasta uu Carabidu keenay, ardaygan 100 uu keenay, midkan 90, midkan waa 80, midkan waa 70. Okay, waxaan doonaynaa marka totalka inaynu soo saarno. muhiimadeena waxay ahayd inaynu totalka aynu soo ogaano, aynu totalka aynu soo saarno. Okay, muhiimadeena waa inaynu totalka aynu soo saarnaa. Okay, sideen ku soo saaraynaa marka u horeyso waxaan leenahay equal baynu leenahay. marka u horeyso equal ayaynu dhahaynaa. equal markaan dhahnana waxaynu sameynaynaa labada tir ugu horeysa isku daraynaa. maadada English ardayga muxuu haystaa 80 keli ku dheh 80 keli ku dheh lagu daray kadibna 100. waxaan isku daraynaa keli 80 ka 100 ku daraynaa. waa ka
عليه ده equal مركا ده أم كسو عليه مركو رئيسه equal سديتن كاكيلي كله لغو درينه بقال كبعدنا انتر تابو waxaynu kaliya soo saareenaa naqus ee waxa weeye natiijada ardayga waa total kiisa marka ardayga waa total kiisa waa 180 oo haysta samaha 180 oo haysta waxaynu doonaynaa marka eega waxaan doonaynaa waxay tahay inaynu marka ardayda kale inaynu soo saarno totalkooda halkaan dhibicda yirista geeskan tagaynaa nooca flirt markay isku bedesho eeg nooca markay isku bedesho flirt noocaas markay isku bedesho qabanaysa left qabanaysa waa soo jiidaysa tartiibtaada waxaad keenaysaa ardayga ugu dambeeyo kali ku dhee marka class sidaas marka ardayda kale dhan aynu ku soo saarnay sidaas maxaa weeye ardayda kale dhan aynu ku soo saarnay marka okay total marka qaab noocaas oo soo saaraysa total ka qaab noocaas ay markaas aan ku soo celino xitaa marka le waxaanu leenahay equal maadooyinka aan isku dardareynaa 80 arday maadooyinka wuxuu haysta ku dhufo maadaama loo maadayihiin lagu daray 100 intertawa marka kabaadan bolis deetan kili ku dheh meesha dhibicdan tag nooca marka isku bedesho okay left qabo oo soo jiid tartiibtaadi kili ku dheh marka خلاص totalka qaab noocaas oo soo saaraysa waxaynu soo saarayna waxa weeye qodob kale in isla arkayna insha Allah qodobkan waxa weeye isagana percentage la soo saaro okay percentage markaan soo saarayno br ka soo gaabso percentage ga aan rabnaa marka inaan soo saarno percentage ga ayaan rabnaa inaan marka aynu soo saarno so percentage markaan soo aynu soo saarayno waxa weeye waxaan leenahay equal baynu leenahay marka uu horeyso equal aan leenahay equal marka dhahdo percentage waxa lagu helaa totalka oo loo qeeyay maadooyinka inta yihiin oo 100 maado kasta laga soo qaadiyo waxaan leenahay totalka arday koowaad waxaan haysanaa maxaa weeye 180 waxaad ku dhufanaysaa kili ku leedahay totalka arday koowaad ku dhufo 180 kaas kili ku leedahay marka kili aad ku dhahdo loo qeybiyay marka loo qeybiyay maadooyinku imisa marka waa English iyo Arabic laba maadana haysanaa maado kasta 100 ka soo qaad imisa 100 ayaan haysanaa marka 200 aan haysanaa soo 200 u qeybi 200 caadi u qor gacantaada ku qor 200 u qeybi internet marka class percentage arday kood marka 0.1 waxba soo baxay kali ku dhee ku laabo ka baadna meeshan sare tag marka point adu ku soo baxdo kali ku dhee meesha sare percentage ay ku aadan tahay halka sare fiiri percentage marka ardaygan percentage ki saxda maxaa weeye waa 90 geeskan tagaysa ee marka waa soo jiidaysa geeskan nooca marka isku bedesho alafta qabanaysa tartiibta soo jiidaysa soo sakeynaysa waa ka sidaas marka percentage aad ku soo saaraysa marka doonayso inaad percentage marka aad soo saarto okay aan ku soo celino aynu ku soo celino waxaan leenahay marka horeyso equal total arday koowaad kili ku dheh loo qeybay baan leenahay maadooyinka 200 kabaadna inter kabaad percentage nooca markuu noqdo okay point uu soo galo waxa weeye kili ku dheh kabaad halkaas sare tag kili ku dheh خلاص kabaad inta qabo soo jiid marka okay sida uu saaran marka ku soo saari karto waxaynu gudbaynaa qodob kale baynu gudbaynaa qodobka kale ayaynu gudbaynaa waxaan soo saaraynaa waxa weeye grade waxa loo yaqaano grade ka markaan soo saarayno ila soo eeg marka so waxaan doonaynaa marka inaan soo saarno waxa weeye hadana noo harsan grade inaan soo saarno grade markaan soo saarayno waxaan leenahay markuu horeyso equal baan leenahay if aad u qoraya equal marka dhahdo if bracket ka for waxa leedahay marka waxaad ku dhufanaysaa percentage arday koowaad kali ku dheh 90 soo maysto kali ku dheh percentage arday koowaad kali ku dheh kali ma ku dhahday oo waxa leedahay greater than marka dhahdo 90 iyo qor 90 percentage raaci 90% hakad marka dhahdo waxaad qoraysaa salaam xawa meeshan 90% calaamadan yaryarka qoraysaa calaamadan yaryarka inverted commas ka qoraysaa calaamadan yaryarka labada qoraysaa inverted commas loo yaqaano kabaadina a aad leedahay ardaygaas a halaysiyo ku soo xir hadana calaamada yaryar ku soo xir markaad ku soo xirto waa si soconaysaa hakad baa leedahay hakad marka dhahdo waa si soconaysaa waxa leedahay if aleeda dana markale hadana if marka dhahdo bracket ka furaysa hadana bracket marka furto waxa ku dhufanaysaa marka u laabanaysaa percentage arday koowaad kili ku leedahay
percentage aragti go'an markaad kale ku dhahdo waxa leedahay greater than baa leedahay greater than markaad dhahdo ardaygan haduu 80 EC 80 haduu ka sareeyo okay percentage raaci 80 haduu ka sareeyo waxa leedahay hakada halkaas inverted commas dhanaamadaas for 80 haduu ka sareeyo okay waxa ay siinaysaa b ay siinaysaa calaamada inverted commas ku soo xir hakada marka ka dhahdo hadana waxa leedahay hadii uu 80 uu ka hooseeyo calaamada inverted commas hadana for okay CEC okay that means waxaan soo xirinaa bracket kan waan soo xirinaa haleenahay bracket kan ii soo xir bracket kan kalena ii soo xir okay aan micnayno marka 90 iyo wixii ka badan haduu haysto waa A buu qaadanaya gradekiisu waa A hadii 80 iyo wixii ka badan uu haystana B buu qaadanaya 80 iyo wixii ka hooseyn maxaa weey wixii 80 ka soo hooseeyo percentage koodi maxaa weey C bay qaadanayaan hal ahaan fiiri labadan waxa laga yaabaa inay qaataan A okay midkan labadan hooseyn waxa laga yaabaa C inay qaataan sababtoo ah 80 ka soo hooseyn sama inter baan leenahay marka okay labadan B sababta loo sii mataqaanta 90 kama sareeyaan 90 ka haystaan had fiiri maadadan ardaygan English ka haysto oo waxaan leenahay 80 soo ma haysto waxaan siinaynaa 90 aan siinaynaa okay waa ka A buu qaatay soo sababtoo 95% uu haystaa waan soo jiideynaa marka inta dhinaca geeska tagaynaa lefta qabanayna waan soo jiideynaa kilaan ku leenahay ee marka micnayno marka waxay noo soo baxay ardaygan waa A baan dhahnay A buu qaad gradekiisi waa A sababtoo wuxuu ka sareeyaa 90 ayuu ka sareeyaa haye percentagekiisa ardaygan waa B sababtoo wuxuu haystaa waxa weey waa 90 hadii 90 ku uu haysan lahaana waxa weey de waxa weey A buu qaadan lahaa okay labada maxay qaateen C bay qaateen sababta u qaateen waxa weey waxaan dhaanay wixii 80 ka soo hooseeyo C hay qaataan 80 ka hooseeyaan dhibcoodna hadii 78 u haystaa maadadana laba ugu dareynaa 70 maadadana 3 dhibco ugu dareynaa 75 u haystaa 78 siinayna eega kabaad fiir wuxuu qaadan doono no weli wuxuu haystaa 79 u haystaa waxaan ugu dareynaa 90 aan siinayno ardaygaas fiir wuxuu qaatay uu isbedelay gradekiisa oo sababtoo 85 buu haystaa 80 ilaa wixii ka sareeyana B bay qaataan okay grade marka soo saaraysa qaab noocaas u soo saaraysa hadda maxay noo arsa markii inaan soo saarno waxaan rabnaa inaan soo saarno qaybta dhacay baase inaan ogaano ardayga dhacay ardayga kale inaan soo saarno meesha waxaan qornaynaa based okay soo gaabi okay waxa leenahay equal go'aana gaarayna marka oo dhicid ah marka waxa leenahay equal if hadii bracket ka for if hadii percentage arday kuwad ku rufo haye greater than that go'aana gaarayna marka hadii ba 50 hadii ba 60 uu ka sareeyo ardayga 60 haduu ka sareeyo waxa leenahay based de xad gudbo ardaygaas hadii ba 60 uu ka sareeyo waxa uu haysto percentage kiisa haduu 60 uu ka sareeyo habaaso oo yaa dhicdoon mid ka bas hari doon inta kale way baas doonaan eeg hadii 60 aan ka sareynin 60 iyo wixii ka yar haduu haysto violet ardayga hadha violet hadha ardayga kabaadna bracket kan kaliya aan isticmaalay soo xir bracket ka soo xir kabaad waxaynu leenahay inter baynu leenahay natiijo soo bixi doonto eeg baasi ku dhufo geeska tag soo jiid dhinaca geeska tag soo jiid ilaa hoos keen kali yaa dhacay mid ka soo dhacay sababtoo 60 ma gaari percentagekiisa 60 ma haysto 58 u haystaa waxaan siinaynaa 3 dhibcood ugu dareynaa maadaama 45 keesa aan ka tirtireynaa waxaan siinaynaa 40 iyo 8 oo kale aan siinaynaa weli wuxuu haystaa 60 weli ma gaarin waxaan siinaynaa 60 iska sii miskiinkan habaas isagana waa ka 65 oo percentage u haystaa marka systemku waa system isku xiran markaa hadii halkaas wax laga bedelo halkan way isu bedelaysaa marka arday iyagana way baaseen sababtoo ma jiro arday percentagekiisii 60 uu ka soo hooseeyo dadkan kuwa hadda waan ridayn hadii u baahno 90 uu haystaa ever easy maadaama Englishka ever uu keeno oo ka shaqeeynin Arabidana ever uu keeni oo dhaca percentage waa 0 gradekiisu waa C waa ever file waxa uu dhaca soo ma jeedido sidaas marka kumanaanka arday lagu xisaabiyo marka percentage kooda la soo saarayo grade kooda la ogaanayo go'aanka adigaas kale inaad go'aamiso mar kasta dhicitaanka hadaan ka dhigno had waxa weey 20 wixii ka sareeya 20 wixii ka hooseeya had dhacaan waxaan had way baaseen go'aanka adigaas kale sidaas ku soo saari kartaa waxa weey grade ka iyo qaybta waxa weey baasay dhacay marka adiga aad ogaanayso okay oo go'aanka gaarayso
waxaynu gudbaynaa marka qodobka waynu ka gudbaynaa oo waxaynu u gudbaynaa qodob kale aynu u gudbaynaa so aynu u gudubna marka qodob kale ku soo xigo maximum qodob 13 waxay noo qoran maximum inaynu soo saarno tirada ugu weyn sideen ku soo saaraynaa baan tiro baan qoranaynaa tusaalahan 90 okay 120 inta ay noo qoran 90 waxaan doonaynaa marka maximum tirada ugu weyn inaan soo saarno maximum waxa weeye tirada markaasi ugu weyn inaynu soo saarno okay sideen ku soo saaraynaa marka qaybta hoose imaanayna halka hoose ama halkaan imaanayna waxaan leenahay equal markuu wareyso equal marka dhahdo max iska soo gaabi magaca max bracket ka fur marka bracket ka furto waxa qoraysa equal max bracket ka furaysa kabaad waxa tagaysa 90 kaas kale ku leedahay halkaan imaanaysa geeska nooca flash marka isku bedesho left qabo hoos soo jeed 220 keen inta dhahdo enter taabo lacagta ugu weyn waan soo saarayso lacagta weyn maxaa weeye waa 120 waxaan doonaynaa minimum lacagta ugu yar inaan soo saarno waxaan doonaynaa inaan soo saarno maxaa weeye lacagta ugu yar inaan soo saarno waxay noo qoraysiin 15 iyo 5 inta tareen noo qora bas waa 15 masalahan inta 12 iga dhig waxaan doonaynaa inaan soo saarno lacagta ugu yar equal baan leenahay min maximum iska soo gaar minimumka equal min bracket from kabadi kor tag dhinaca geeska tag left qabo soo jeed shanta keen kale ka taadado okay enter debes lacagta ugu yar maxaa waayadana lacagta ugu yar waa 5 lacagta ugu yar waa 5 sax waxaan soo saaraynaa average-ka celceliska mesela countiga aan ku sii hormarno qaybta countiga okay countiga waxaan rabnaa marka countiga wax kale ma usaadi inaad tiriso godadka markaas lacag inta god markaas lacag kugu jirto inaad xisaabiso equal waxaynu leenahay markuu wareyso equal baan leenahay waxaan qoraynaa si dhameystiran count markaan qorno bracket ka baynu furaynaa kabaada tirada ugu sareysa tagaysa kili ku dheh dhinaca geeska tag left qabo soo jeed sidoo kale kabaada enter hadaynu waxa uu soo saaray waa 4 dadka lacagaha imisa god lacag u jirto 1 2 3 4 okay qodob soo xigo waa average waxay noo qoraysiin 85 iyo 80 average kan soo saarayna waxaan leenahay equal average markaan soo saarayno equal average bracket ka fur sidoo kale okay bracket fur ka baadina kor tag 80 kili ku dheh dhinaca geeska qabo soo jeed hoos keen inta rakatibna average kan soo saarnay waa 82.5 okay waxaan soo saaraynaa sidoo kale date taariikhda oo kale kiisa ku soo saaraysa equal baa leedahay buu fududayta equal leedahay markuu horeyso today ayaad qoranaysaa today markaa qorto bracket ka fur enter taabas waka taariikhdan way naga yara qaldan tahay way noo saan tahay waa 2020 bisha 2022 okay waxa markaa inoo soo xigo inaan aragno markaa sidaas maximumka minimumka countiga averageka iyo detail taariikhda daw baato oo kaliya tahay aadan haysan saacadadan haysan aad kala socon kartaa marka aad markaas u soo saari kartaa okay waxaan gudbaynaa marka qodobada xigaan u gudbaynaa waxa inoo harsan baynu gudbaynaa in yar inoo harsan I think okay sida waxaan ku soo sameeynay maximum minimum count average date waxaan oo xiga fill color behind the select tags in qoraalka gadaashiisa color aan ku shubno orientation of the tags qoraalkina waxa weeye xogaa aan qurqurxino waxa weeye chief joogeed aan qaloocino
inta badan iyo inaan markaasi background picture sawir inaan soo gelino okay sasocona marka waxaan doonaynaa qoraalkan inaan color aan soo shubno eegaysaadi halkee la soo eeg qoraalkan aan doonaynaa color aan ku shubno kilaan ku leenahay dhamaan color sidaan oo kale color ugu shubaynaa kila markaa ku dhacdo halkaas tagaysaa fill color ay ku qoran tahay kabadi colorkii jecesha u dooro haddana minimum bay imaanaynaa meeshaan tagaynaa sidoo kale color baynu samaynaynaa countaan imaanaynaa meeshaan tagaynaa color baynu u samaynaynaa waxa weeye color ayaynu u samaynaynaa average baynu tagaynaa sidoo kale waxaan u samaynaynaa color baynu u samaynaynaa sidoo kale date baynu tagaynaa waxaan u samaynaynaa sidoo kale color baynu u samaynaynaa ya color ayaynu u samaynaynaa waa marka lagu leeyahay waxa weeye qodobkan oo ah markaasi fill color waa qodob noocaasa wey insha allah waxaa noo xiga orientation of the text markaynu samaynayno eeg orientation wax kale maaha maximum hadda keli ku dheh maximum marka keli ku dhacdo sidii waxaad tagaysaa halkaas tagaysaa halka ay ku qoran tahay orientation halkaas sare orientation halkaas sare a b flat toos ay ka marto okay dhinaca geeska shafur kabaad inta designka jecesha ka dhigo vertical text ka dhigo daarabta noocaas uu noqonaya hay daarabta ka dhigo rotate ka dhigo noocaas uu noqonaya soo bedela soo ma jeediso oo isku bedeli okay designka adiga jeceshahay adiga dooq iskale mina doorasho adiga iskale kana hadana hagaajinaysa isagana minimum ka uu ma hadana noocaas oo kale ka dhig isagana countiga uu ma noocaas oo kale ka dhig okay uu ma average ka noocaas oo kale ka dhig maanta inaad date uu ma sidoo kale okay waka inaad saa u qurxisto aad u hagaajiso okay qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay isagana okay ina markaasi background picture-ka inaan iska bedelno background picture-ka inaynu markaan iska bedelno waxaynu tegaynaa page layout baynu tegaynaa madaxa sare ka bacdina halka maxaa ujeedaa background ku dhufo kadib waxaad tagaysaa qayb sawirada ogta xagee kugu jiraan picturesna xagee iska tag concept-kan soo qaadanaynaa su'aalaha midka ayaan soo gashanaynaa kili ku dheh kabacdina insert okay sidaas markaas adiguna aad u soo gelin kartaa waxa weeye sawir aad u soo gelin kartaa hadda meesha ku laabanaysaa page layout delete baa leedahay haddaadan u baahnayn waa iska tuuraysaa haddaadan u baahnayn delete aad leedahay waa iska bixinaysaa okay insha allah casharkeenuna maanta halkaas ayuu markaasi ku eg yahay muraajacadan waxa weeye muraajacada afraad oo marka aynu ugu hadlaynay waxa weeye misana aynu ku sharxaynay qaybaha revision ka misana muraajacada qaybta markaasi MS Excel ka okay wabillahi tawfiiq